kiishii ugu sarsareysay ciidankii la magac baxay badbaado qaran oo xalay guriga farmaajo tagay waxayna raaligelin ka bixiyeen wixii horey khalad ahaa oo uga dhacay waxaan ku soo gudbin doonaa saraakiisha iyo qabiilada ka soo jeedaan iyo tir ahaanba inta ay gaarayaan sidoo kale waxaan kula wadaagi doonaa xisbiga nabad iyo nolol ee uu hogaamiyo madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya oo albaabada loo furay iyada oo la filayo in saraakiil shakhsiyaad caan ah xildhibaano siyaasiyiin ay ka soo muuqdaan kuna soo biiraan xisbiga nabad iyo nolol haddaba kulamadii ugu dambeeyay ee ka dhacay guriga farmaajo iyo waxyaabihii looga hadlay ayaan kula wadaagi doonaa waxaan kaloo ku soo gudbin doonaa wafdi culus oo hogaaminayo Garaad Jaamac Garaad Cali garaadka guud ee maamulka waqooyi bari oo goordhow soo gaaray magaalada Muqdisho si ay kulamo ula qaataan madaxweyne farmaajo qodobadaas iyo waxyaabihii kale ee nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada haday tahay markii kuugu horeysayna nagu soo biiro oo subscribe dheh daraja media muuqaalka aad daawanaysid like sar aragtidaadana qaybta commentiga ee nagu reeb qodobkeena ugu horeeya ayaan ku bilaabayaa saraakiil ka tirsan ciidanka la magac baxay badbaado qaran ee mar hore la aasaasay isla markaana ka soo horjeeday dawladii uu hogaaminayay madaxweyne farmaajo ayaa xali raaligelin iyo xaal marin waxay ugu tageen farmaajo guriga uu ka degan yahay nawaaxiga garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho xogaha aan helnay waxay tilmaamayaan in saraakiisha farmaajo u tagtay ay gaarayaan ku dhawaad 4 nin kuwaas oo si weyn uga soo dhex muuqday ciidankii la oran jiray badbaado qaran warbaahinta ayaa loo diiday in muuqaalo ama sawirro ay ka baahiyaan ama xataa qoraallo ay ka qoraan kulanka dhex maray farmaajo iyo saraakiishii ciidankii badbaado qaran xubno sarsaro oo ka tirsan maamulka farmaajo ayaa waxay goordhow ii sheegeen in madaxweyne farmaajo uu albaabada furay isla markaana uu doonayo inuu cafiyo cid walba oo isaga khalad hore uga gashay ismasaamaxaadu waa wax aad u wanaagsan oo ay nafarayso diinteena suuban ee islaamka farmaajana albaabada ayuu u furay cid walba oo isaga wax ka tabanaysa waxaana rajaynaynaa in wax walba lagu dhameeyo wada hadal iyo wada xaajood ayuu yiri shakhsi ka tirsan hamaamuuska madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi farmaajo waxaa la sheegay intii uu kulanku socday inuu u sheegay saraakiishii badbaado qaran ee uu la kulmay in wax khalad ay ahayd in dawladooda ay ka hor yimaadaan iyagoo mushaar qaata tasiilaad kalena hela laakiin saraakiishii la kulmay waxay sheegeen in arrimo siyaasadeed oo isbiirsaday qabaa'ilo uu weheliyo ay ku sababeen inay farmaajo ka hor yimaadaan isla markaana ay la magac baxaan ciidankii badbaado qaran farmaajo ayaa la sheegay in tiro dhowr jeer uu su'aalo ku celceliyay saraakiisha uu la kulmay isagoo u sheegay markii dambe in la iscafiyo lagana wada shaqeeyo dawladnimada Soomaaliya khubarada arrimaha la socota iyo kuwa doorashooyinka ilaha gaarka ku haya waxay tilmaamayaan in albaabada uu furay farmaajo ay saamixi doonto in xisbiga nabad iyo nolol uu noqdo mid weyn oo cid walba ay ka soo dhex muuqato laakiin farmaajo haddii uu isxirxiro oo uu mucaaradka albaabada ka xirto dawladda Xasan Sheekhna albaabada uu ka xirto waxay dad badan aaminsan yihiin in farmaajo isaga kaliya uusan wax dhaqaajin karin waana tan keentay ayaa la leeyahay inuu farmaajo albaabada u furo cid walba oo markaasi ka soo horjeeday maamulkiisii hore si hadda la isku dhayo loogana wada hadlo khilaaf walba oo jiray xubno sarsaro oo ka tirsan maamulkii la magac baxay badbaado qaran ayaan goordhow qadka telefoonka kula hadlay waxayna ii sheegeen inaysan jirin wax colaad ah oo hadda ka dhaxaysa farmaajo iyo ciidankii badbaado qaran haddii uu farmaajo xataa mar kale noo baahdo in aan ka hornimaano madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arrintayadu waa halkeedii oo badbaado qaran laba ayaan asaasaynaa ayuu yiri sargaal saro oo ka tirsan ciidanka badbaado qaran labo dadka arrimaha la socda waxay leeyihiin farmaajo waa nin waaye arag ah oo si dhow oo la socda xaaladaha halkan ka taagan isagoo markaasi dhayalsan in hadda dawladnimada Soomaaliya aan la burburin karin dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu haray 8 bilood iyo maalmo waana inuu waqtigiisa si sharaf leh ku dhameystaa kadibna lagana wada hadlo waxyaabihii kale ee jira laakiin haddii ay noqoto in la taagtaago oo muddo ku taag arrintu ay noqoto dawladnimada Soomaaliya way naga burburaysaa ayuu u sheegay farmaajo saraakiishu uu la kulmay oo tan oo dabcan markaasi cadeynaysa inuu farmaajo wali albaabadiisu ay furan yihiin oo uu doonayo in cid walba wada hadal iyo wada xaajood lagu dhameeyo khubarada arrimaha la socota sidoo kale waxay leeyihiin farmaajo waa nin si dhow u yaqaana ninkii wax gala iyo ninkii wax guda waana tan keenaysa inuu farmaajo cafis u fidiyo cid walba isaga wax ka tirsanaysay ama isaga laga tirsanayay waliba markii ay jireen ciidankii badbaado qaran labo waxay ku soo kordhaa daawadayaal qodobkaasi waxaan idinkula wadaagi doonaa wararkeena dambe markana
xisbiga nabad iyo nolol oo ka mid ah xisbiyada ugu caansan marka la joogo geyiga Soomaaliya waa mid ka mid ah xisbiyada ugu shacbiyada badan madaxweyne Farmaajo uu hogaamiyo Fahad Yaasiin iyo Farmaajo waxyaabihii ay ku kala tageen waxaa ka mid ahaa inuu Farmaajo sheegay in la ballaarinayo oo albaabada loo furayo xisbiga nabad iyo nolol laakiin waxaana loo sheegay in Fahad Yaasiin arrinkaasi uu diiday halkaasna khilaafku uu ka dhashay labada ninna sida ay ku kala tagaan barigii hore Farmaajo wuxuu aaminsanaa in cid walba albaabada loo furo oo xisbigu uu noqdo mid ka dhaxeeya cid walba hadda xogaha iyo wararka la helaya waxay tilmaamayaan inuu madaxweyne Farmaajo u sheegay shakhsiyaadkiisa qaabilsan dhanka ololaha iyo isku dubridka arrimaha doorashada 2026 inay u diyaar garoobaan in albaabada loo furo xisbiga nabad iyo nolol oo xisbigu uu noqdo cid walba inay imaan karto cid walba ay soo gali karto cid walbana ay ka bixi karto oo uusan xisbigu noqon mid shakhsiyaad gaar ah u xiran Farmaajo mar uu la kulmay tiro xildhibaano ah oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland iyo maamulka Jubbaland wuxuu u sheegay waa inaad garab istaagtaan oo aad dhinacyadeeda soo istaagtaan abaalkiina wax weyn ayaan ka gudi doonaa xisbiga nabad iyo nolol wuxuu noqon doonaa mid albaabadiisu ay furan yihiin oo cid walba u dhaxeeya laakiin xisbigu hadii uu noqdo mid ay albaabadiisu xiran yihiin cidna ma soo danaynayso ama cidna ma imaanayso taas oo dabcan loo arko inuu ula jeedo in xisbiga nabad iyo nolol albaabadiisu ay furan yihiin haddaba maxaa laga doonayaa cidda ama shuruud looga dhigaya cidda ku soo biiraysa xisbiga nabad iyo nolol su'aashaas mar aan weydiiyay mid ka mid ah hamaamuuska madaxweyne Farmaajo wuxuu ii sheegay dastuurka dalka iyo guddiga doorashooyinka xeerarka ay soo saareen waa uu diidayaa in xisbiga tusaale ahaan Xasan Sheekh Maxamuud oo ka tirsan inaad ku biiri karin xisbiga nabad iyo nolol calaashaan waa inaad labada xisbi mid doorataa si uu markaasi ay u noqoto sheekadu mid hufnaan ah dadka arrimaha la socda sidoo kale waxay leeyihiin madaxweyne Farmaajo inuu albaabada u furo xisbiga nabad iyo nolol waxay ka dhigaysaa ayaa la leeyahay in ay arrintu gaartay meel sareysa oo cid walba xisbiga ay ku soo biiri karto shakhsiyaadka qaabilsan ololaha doorashada madaxweyne Farmaajo ayaa laftirkoodu waxay kordhiyeen kulamada ay la qaadanayaan cid walba oo ay u arkaan inay saameyn leedahay dhanka arrimaha bulshada dhanka siyaasadda dhanka dawlad goboleedyada dhanka beesha caalamka iyo dhanka la macaamilka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Farmaajo waxaa la sheegay inuu tiirar kala duwan u sameeyay xisbiga nabad iyo nolol isagoo sheegay in xisbigan uu yahay mid si weyn oo waliba aad ah looga shaqeeyay isla markaana ay arrintiisu tahay mid aan la dhaafi karin khibrada arrimaha la socota sidoo kale waxay leeyihiin Farmaajo wuxuu arkay fursad isla markaana la rabo inuu ka dhex faa'iideysto tusaale ahaan Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii dawladda kumeel gaarka ahayd ee dalka iyo sidoo kale shakhsiyaadka kale ee ku hareereysan xisbiga himilo qaran waxay dad badan aaminsan yihiin inay jiraan khilaafaad sida si lamid ah xisbiga uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud ee wadajir iyo cadaalad ama GSB waxay dad badan aaminsan yihiin in khilaafaad uu jiro oo uu ka faa'iideysan karo Farmaajo isla markaana dhinaciisa ay soo aadi karaan shakhsiyaad mug iyo miisaan leh taas oo dabcan loo arko inay tahay fursad muhiim ah oo ay tahay Farmaajo inuusan iska beel darayn sidaas lamid ah tiro xildhibaano ah oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland ayaa wararku waxay tilmaamayaan inay u tageen Farmaajo iyagoo u sheegay inay markan diyaar u yihiin inay ku soo biiraan xisbiga oo ay wax la qaybsadaan Farmaajo taas oo dabcan loo arkay inay tahay fariin cajiib ah oo dhinacyo badan ka timid oo la doonayo in xisbiga nabad iyo nolol markaasi lagu ballaariyo waynu arki doonaa iyadoo la filayo in olole doorasho ah uu qabto madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya qodobkeena ugu dambeeyana garaad cali garaadka guud ee beelweynta dhulbahante garaadka guud ee maamulka waqooyi bari ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana la filayaa inuu kulamo la qaato mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo waliba madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ila wareedi aan goordhow la hadalnay ayaa waxay tilmaamayaan inuu Farmaajo casuumay garaad cali iyo islaadiinta maamulka waqooyi bari isagoo dabcan u sheegay in ay xilligan uu diyaar u yahay in uu tago magaalada Laascaano si uu uga qayb galo xafladda caleemasaarka Cabdiqaadir Firdhiye dabcan waxaa jira khilaafaad hoose oo u dhaxeeya garaad cali iyo sidoo kale Cabdiqaadir Firdhiye taas oo la sheegay inay xaaladda dab kale ku sii shidayso
wararka iyo macluumaadka la helayahay waxay tilmaamayaan in dhowrkii saac la soo dhaafay si weyn loo dareemay inay jiraan cadaadisyo kala duwan oo ka imaanaya darafyo kale kuwaas oo la sheegay inay arrinta dab kale ku sii shidayaan khubarada aan la hadalnay waxay tilmaameen in garajaamac garaad cali inta uu joogo magaalada muqdisho dabcan uu kulan duceedyo la qaadan doono madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay wararka iyo macluumaadku tilmaamayaan in dhowrka saac ee soo aadan sidoo kale ay muqdisho soo gaari doonaan qaar ka mid ah isimada dhaqanka waqooyi bari kuwoodii hore u joogay maaha kuwa kale si loo laba jibaaro dabcan qodobada muhiimka ah ee hortibinta u leh dhismaha maamulka curdunka ah iyadoo xogaha iyo macluumaadka la helayaahina ay sheegayaan in saacad walba la filan karo inay wax isbedelaan oo ah mowqifka garajaamac iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo qodobada ay ka wada hadli doonaan ayay dad badan aaminsan yihiin inay ugu weyn tahay sidii loo dhammayn lahaa khilaafaadka hadda jira iyo in si degdeg ah loo xaliyo tabasho walba oo ka imaanaysa dhinacyo kale kuwaas oo ay dad badan aaminsan yihiin inay xaaladda dab kale ku sii shidayso Farmaajo dad badan waxay aaminsan yihiin inuu markan xalin karo khilaafka u dhaxeeya garajaamac iyo sidoo kale Cabdiqaadir Firdhiye sidaas la mid ah dadka kale waxay aaminsan yihiin in khilaafaadka u dhaxeeya garajaamac iyo sidoo kale Cabdiqaadir Firdhiye si hoose loo xalin karo iyadoo macluumaadka iyo wararka aan heleynana ay tilmaamayaan in dhowrkii saac la soo dhaafay sidaas oo kale ay jireen culaysyo kala duwan oo ka imaanaya dhinacyo kala duwan kuwaas oo la sheegay in ay Cabdiqaadir Firdhiye iyo sidoo kale waliba madaxweynaha garajaamac garaad cali ay si kala fogeynayaan oo ay rabaan inay ka faa'iideystaan in xaaladaha noocan oo kala ah ay dab ku sii shidaan iyada oo khubaradu ay aaminsan yihiin haddii waxaan oo kale ay sii socdaan inay wax badan isbedeli karaan oo ay xaaladdu tagi doonto meel aan waxba laga qaban karin Cabdiqaadir Firdhiye tiro dhowr jeer ayuu warbaahinta ka hor sheegay inuusan isagu markan doonayn inuu sii arko khilaaf daba dheeraaday oo dabcan u dhaxeeya maamulka waqooyi bari iyo sidoo kale isimada dhaqanka isagoo taa bedelkeeda aaminsan in wax walba oo jira lagu xalin karo wada hadal iyo wada xaajood oo miiska lagu xalin karo iyadoo laakiin ay jiraan baa la leeyahay dad kale oo raba inay ka faa'iideystaan arrimahan laakiin garajaamac waxa la soo warinayaa inuu si dhow ula socdo dhaqdhaqaaqyada ay wadaan Siciidani iyo Cabdiraxmaan Cirro oo ku aadan in si degdeg ah loo xaliyo arrimaha hadda ama tabashooyinka hadda taagan oo ay dad badan aaminsan yihiin inay maamulka wax badan ka haleyn karaan Cabdiqaadir Firdhiye tiro dhowr jeer waxaa la sheegay inuu gurigiisa ugu tagay garajaamac garaad cali laakiin garaadka ayaa la sheegay inuu tiro dhowr jeer ka dhag adeegay armaradaasi isagoo sheegay in hadda wixii jira oo khilaafaad ah mar kale la iskaga imaanayo taasoo loo arkay dabcan inuu garajaamac xilligan uusan diyaar u ahayn in la xaliyo khilaafka isaga iyo Firdhiye waxaa la filayaa Farmaajo inuu xataa isu keeno Cabdiqaadir Firdhiye iyo garajaamac garaad cali isla markaana is hor fariistaan taasoo haddii ay dhacdo noqonaysa guul istiraatiijiyadeed oo muhiim ah sidaas la mid ah Farmaajo waxay dad badan aaminsan yihiin inuu kala hadli doono garajaamac garaad cali in xildhibaanada laga soo xulayo dhinaca maamulka waqooyi bari ee Sool Sanaag iyo Cayn uu door ku yeesho oo Farmaajo laga siiyo tiro xildhibaano ah oo isaga u codeeya dib u doorashadiisa iyadoo oo qodobkaasna uu yahay qodob kale oo muhiim ah oo dabka saaran oo ay dad badan aaminsan yihiin in si degdeg ah loo xalin karo sida ay khubarada iyo dadka la socda arrimahan ay aaminsan yihiin si walba ha ahaatee xaaladaha halka ka jira ay dad badan waxa ay aaminsan yihiin inay xaaladda dab kale ku sii shidi karaan iyadoo oo la arkayo marka ka dambeysana la soo tabinayo dhacdooyin cajiib ah oo ku saabsan in xaaladaha halka ka jira ay yihiin kuwa kale oo xaaladda dab ku sii shidaya haddii garajaamac garaad cali iyo sidoo kale Cabdiqaadir Firdhiye is arkaan waa dharbaxo weyn oo ku dhacday Siciid Cabdullaahi Dani iyo Cabdiraxmaan Cirro oo muddo diidanaa in labada nin ay is arkaan isla markaana ay ka sheekaystaan wax walba oo dhexdooda ahna si degdeg ah ay u xaliyaan laakiin dad kale waxay aaminsan yihiin in wax walba oo khilaafaad oo jira la xalin karo haddii gacmaha shisheeye ay ka baxaan calaashan haddii ay ka dhex baxaan ayaa la aaminsan yahay Puntland iyo Somaliland in garajaamac iyo sidoo kale Cabdiqaadir Firdhiye ay wada hadli karaan wada xaajoon karaan xaaladoodan ay halka ku dhameyn karaan laakiin inta lagu dhex jiro dad badan waxay aaminsan yihiin inaysan talaabo qaadi karin oo ay xaaladdu noqon doonto mid halbacaad lagu lisay ah oo aysan waxba socon doonin sida ay khubaradu aaminsan yihiin isla markaana dadka arrimaha la socda ay dhaqdhaqaaqooda ay ku soo bandhigayaan guud ahaan saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhan yihiin